Shacabka ku dhaqan magaalada Baladwayne ayaa soo dhaweeyay Casilaadii Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya sida warbixintaasi isna inoogu hayo Cabdifataax Yare. Mudooyinka u dambeeyay waxaa soo xoogaysanay khilaaf ku dhaxeeya baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya balse dadka ku dhaqan magaalada Baladwayne ayaa fikrado kala duwan ka dhiibtay Casilaadii maanta Casilay Gudoomiyaha Golaha Shacabka Professor Maxamed Sheekh Jawaari maray u waramayaan telefishinka caalamiga GTN TV-na waxaa hadalladooda ka mid ahaa wax ka soo dhaca xal inay yeeshaan waaya marka waxa ilaahay mahadiisa Jawaari hadii uu arkay intii hadda maaragtay caqabadu is hortaagneed in uu maaragtay asagu hadda fududeeyo oo iscasilay inuu xal u arkay taasaaba waxa ay guul soo mas'uuliyadda kale oo dawladdu waxa baaq u jeedina intay ayagu isku mashquulsan yihiin in maaragtay mushkilad kala dushooda laga abuuraayo ayagana la isugu dhiibaayo oo sababtu tahay way ujeedada laga leeyahay diyaaradaha lacagta iyo danaha la raraa oo qaaska ee danta laga leeyahay maxay tahay ayagina la isku mashquuliyo markii hore loo soco lahaay maxay ahayd kun danood dadkii soo doortay 100 doonaad ay ka leeyihiin xildhibaanada sanadkii labaad ay sii maro hayaan xildhibaankan wixii loo soo ordo waxay ahayd familkiisi dadkiisi qabiilkiisi danaha kala inuu u qabto laakiin inuu maarta mooshin iyo wax aan micno lahayn ku mashquulo ma ahayn waxa laga yaabaa xildhibaan wali hal arday oo shaqo geeyay aan la arag hal arday oo jaamacad u diray aan la arag hal famil oo wuxuu qabtay aan la arag in uu mooshinadaan dhibaatooyinka iyo dhabarjabka ugu weyn oo maxay ku mashquulsan yahay maxay tartay marka xildhibaannimadoodii maxay tartay wax qabadkoodii waxaan leeyahay arrimahaas oo kale inay ka gudbaan oo waqtigan iyo wixii ka dambeeya ay arintaas ay maaragtay maxay ahayd ay hore uga socdaan oo aysan ku mashquulin oo ay Soomaalinimada muujiyaan oo ay maxay ahayd dadnimada muujiyaan marka iyagu isku mashquulaan micna darro waay waana wixii Soomaaliya ku micna beeshay waxaan ku noolahay magaalada Baladwayne ee gobolka Hiiraan runtii hadii aan ka hadlo arintan iscasilaada Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Jawaari runtii waa arin farxad leh waana soo dhaweynaynaa hadii aan nahay bulshada reer Hiiraan xilli waxay ku soo beegantay dalku oo qalqal siyaasadeed taasna waxaa sababay Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Jawaari sababtoo ah waxa laga rabay xilligii isqa qabsiga uu horeeyay oo isqa qabsiga xilligu kood hore imaanayay inuu iscasilay hadda ma ahayn inuu iscasilo runtii waxay ila tahay odayga waagi hore sumcad iyo sharaf iyo karaamo kala dadka Soomaaliyeed agtooda laakiin hadda wax sharaf uu leeyahay mala sababtoo dadkii uu kiciyay oo dhowr maro shirar qabtay shirarkiisa xataa waqti ma leen waa is xigeen maalintii waxa laga yaabaa 3 mar 4 mar inuu shir qabto marka sumcad darre ku tahay asigoo maqaamkii Soomaaliyeed gacanta ugu jiro siyaasi ah in badan soo shaqeynayay aqoon dheeraad leh nabadoon ahaa inuu micnaha bulshadii oo kiciyo aad bay foolxumo u ahayd marka waa soo dhaweynaya mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxa dhacay iyo waxay ahayd waxaan la filaynin aad iyo aad ayaan u hambaleynayaa Professor Jawaari oo arkay marxaladda Soomaaliya waxay ku sugan tahay iyo xaalad hadda la joogo Professor Jawaari inuu iscasilo waxa keenay marxaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo dhibka wadanka faraha la sii galay iyo qalqalka siyaasadeed iyo isbedelka siyaasadeed oo dalka sii galay sidaas darteed aad iyo aad u wanaagsan inuu iscasilo inuu xilka ka daga maadaama uu yahay ruucada Soomaaliyeed maadaama uu yahay nin qabiir ah nin cilmi u saaxiib ah wuxuuna arkay uu fiiriyay danta dadka iyo dalka waxaan kaloo leeyahay golaha fulinta ugu horeeyay madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inay faraha kala baxaan golaha sharci dejinta waxa ku qasbay ninka la yiraahdo Jawaari inuu iscasilo waxay ahayd faragelin toos ah oo la laabeen ay ku hayaan ninka la yiraahdo madaxweynaha iyo gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha sidaas darteed waxaan leeyahay haduu yimaado mid kale kala baxaana faraha golaha sharci dejinta kala baxaana faraha golaha ay sheeg waxa la yiraahdo fulinta aad iyo aad waxaan ku suganahay degmada Baladwayne magacaygu waa Axmed Sheekh Cali aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaan u hambaleynayaa Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari waa nin macquul ah oo dawladnimada Soomaaliya jecel in xasilooni wadanka ku dhamaado waxaan aad uga xumahay oo ambaareynayaa inay xukuumadda Soomaaliya ay mataqaanaa ay diiday dhexdhexaadintii ummadda Soomaaliyeed ay waday xagga culimada xagga beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed waxay ku xuntahay haddii laba isdagaasho
mid in laga badiyo moogiye ma yeesho Soomaaliya soo wadadooba maaha markii ugu horeysay bulshada ku dhaqan magaalada Baladwayne xarunta gobolka Hiiraan ay ka raayidaan ay fikirkooda ka dhiibtaan khilaafka xooggan u dhexeeya baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya balse ma oga meesha uu dambeey doonta baarlamaanka iyo waliba xukuumadda Soomaaliya Abdullah Abdullaahi Yuusuf Abdullah Yare telefishinka caalamiga GTN TV magaalada Baladwayne